shirkani waxa uu ahaa mid lagu dhexdhexaadinayay labada qabiil ee Gariga iyo Jaarsada oo si wada jir u wada diga qayb ka mid ah dawladda deegaanka Soomaalida gaar ahaan tuulooyinka hoos yimaada degmada Tulle Guuleed muddooyinka ugu dambeysay waxa laga dareemayay kudhacyo soo noqda oo u dhaxeeya labadani qabiil oo ku nool gobolka Faafan iyadoo taasi laga duulayo ayaa labadii toddobaadna ka soo gudubnay waxa magaalada Nadiirdhaba ka socday kulamo isxiga oo lagu xalinayo khilaafka u dhaxeeya shirkani waxa uu ahaa mid lagu dhexdhexaadinayay labada qabiil ee Gariga iyo Jaarsada oo si wada jir u wada diga qayb ka mid ah dawladda deegaanka Soomaalida gaar ahaan tuulooyinka hoos yimaada degmada Tulle Guuleed muddooyinka ugu dambeysay waxa laga dareemayay kudhacyo soo noqda oo u dhaxeeya labadani qabiil oo ku nool gobolka Faafan iyadoo taasi laga duulayo ayaa labadii toddobaadna ka soo gudubnay waxa magaalada Nadiirdhaba ka socday kulamo isxiga oo lagu xalinayo khilaafka u dhaxeeya labadani qabiil iyadoo oo loo xalinayo si wada jir lana marayo wadada amaba xeerarka dhaqanka waxaana qayb libax ka qaatay isla markaasina soo diyaariyay barnaamijkan lagu xalinayo khilaafka u dhaxeeya Gariga iyo Jaarsada guddi uu hogaaminayo Ugaas Mustafa Maxamed Ibraahim oo ka kooban duqeyda beesha Ciise waxaana maanta la qabtay munaasabad ay si rasmi ah ugu shaacinayeen in ay gaadheen heshiis rasmi ah oo u dhaxeeya Gariga iyo Jaarso isla markaasina hadda wixii ka dambeeyay si nabadgelyo ah oo wada noolaani doonaan qaar ka mid ah duqeydii kala duwaneed ee ka soo qayb galay shirkan ayaa waxa ay aad u amaaneen kaalinta uu ka qaatay Ugaas Mustafa iyo waliba guddiga uu hogaaminayay ee ka kooban duqeyda beesha Ciise in heshiiskani la gaaro waxayna dhamaantood ballan qaadeen in halkaas ka sii xoojinay doonaan heshiiskani rasmiga ay ku dhawaaqeen suldaanada kala hogaamiya labadani qabiil barbaartiya gabdhahaba waxaan ugu ducaynaynaa anigoo ku hadlaya afka Gariga Jaarsaba waxaan ugu ducaynayaa ilaahay inuu xasanaadka ugu daro muraadkooga iyo muraadkay rabaan ilaahay inuu ku siiyo ayaan ugu ducaynaynaa ducadaas iyo salaanta kolkaan soo dhaafo aniga Garaad Cabdimaalig ahaan maanta waxay tahay maalin weyn maalin taariikh ay tahay dareenkayga ma koobi karo ma cabiri karo sababtoo ah waxaan baryahan oo dhan ilaahay ka baryayay ayaa maanta ma artay xaqiiq garowday anu waxaan leeyahay maanta dadka islaamka ee halkan jooga ay ugaaska Ciise ugu horeeyo iyo garaadada iyo salaadiinta annaga noo duceeyaan leenahay ducadiinaas ilaahay noo aqbali annaguna waanu ducaynaynaa labada beelood ee walaalaha anagu waxaan farayaa in sidaa qalbigoogu shalayba uu ka bilaabmay ay ahaadaan shalay way wada qayilayeen jaadka meel bay ku wada cunayeen ninba salaadan wada tukanaynay sidaa ay yihiin inaynan iska bedelin baan farayaa iyaga diinteenna macaan waxay sheegtay ninkii ruux ibni aadana islaam hadama ruuxii nin ibni aadana badbaadiya wuxuu la ajir yahay nin adduunkoo dhan badbaadiyay inaynu adduunkoo dhan badbaadinno muumin wey waxaan ka hadlaynaa maaha ibni aadan dad muslina oo shahaadanaya oo dharar walba dhiigoogu daadanaya inaynu ka qayb qaadano ma waxaan leeyahay walaalayaal dadkaas way dhibaataysan yihiin geedahay hoos jiifaan cid caawisay ama dawlad ama hay'ad ma jirto waxa loo baahan yahay nabadii way xidhantay inaad ka qayb qaadataan nin walba gurigiisii inuu ku noqdo oo noloshiisii uu ku noqdo dad beeraley way bilihii beeraha loo diyaar garoobay way haddii nabadii la helo bari wuxuu beer ku qoto ma haysto wuxuu cagafta beertii ku geysta ma haysto hantidiisii waxay kaga burburtay calaadaasay kaga burburtay una waxba ka ogeyn isagu oo meelo kale laga soo abaabulay waxa loo baahan yahay qurba joogay walaalayaal waa idii ducaynaynaa in nabadda aad ka qayb qaadataan saasa waxaan leenahay annagu waan dhaaranaynaa waxaan ku dhaaranaynaa inaan arrintaani daba joogno inaan u ducayno inaan salaadii aan tukanaba xagga u jeesanaan ku ducaynaynaa oo kaalinteeda ka qaadano inaguna waxaad noo dhaartiin ganacsato marxaba oo naga aqbalayno odayada marxaba kama aqayno barabisillahna noogu dhaartaan leen hal la dhaarto sidaa baan ku aaminaynaa inta baan ku daray wassalaamu calaykum waxa weyn shaahi bihi gogashi dad aan daalayninba oo malaa'ig moodid ayaan ugu nimid halkan waa dad maxaan ku raanaan iloobayn intaanu noolahay aanaan iloobayn waxaan ugu ducaynaynaa wuxuu raggii ugu horeeyay ugu duceeyo ilaahayn inuu aakhiriya adduunyadaba miisaankooda xasanaadkana ugu daro aakhiriya adduunyadaba liibaano waxaan hadalkayga ku soo gunaanadayaa waxaynu nahay dad islaam ah laa ilaaha illa allah muxammadur rasuulullah ku midaysan baan nahay waxaynu nahay dad jaar ah waxaynu nahay dad ma ehel ah waa in aynu u qalanno waxa aynu nahay
waa inaynu nacno xumaanta waa inaynu ka run sheegno waxaynu nidhi labada beelood ee walaalaha ee geriya jaarso naguma dhibin si fiican aabayaashii ugu horreysada u sheegeen iyaad u hadasheen walaalnimo ku jira waxaan aniga codsanaynaa nabadda aad qaadateen iyo ballanta aad noo gasheen inaad fulisaan oo dadka niga hare ee badnaa inaad gaarsiisaan iyo aniga codsanaynaa iyo ganacsatadaba inaan ballantii aad qaadeen inaad fulisaan taa kadib waxaan u mahad celinayaa gabdhihii dhariga karinaya barbaartii wiilal iyo gabdhaba leh sidii hore iga horreeyay sheegeen inuu miisaanada xasanaadka ilaahay ugu daro damraadka leedahay siiyana waan u mahad celinayaa ciidanka iyo gobolka intaba intii ka soo qayb qaadatay godasha quruxda badan inuu sidaa u dhaco waan u mahad celinayaa mahadnaq waxaan ahay oo ii haray ma jiro baaqna waxaan u jeedinayaa geriya jaarso meel walbaad joogtiin ama dibad joog ama keenta ku jir ragga furimaha jooga intiina waxaan ugu baaqayaa inaad nabadda aad qaadatiin aad fulisiin ee odyaha iyo garaadka ee suldaanku waxay nii qaadeen in aad ka dhabaysiin ood la qaadatiin baan iga codsanaya oo baaq nii soo jeedinayaa intaa kadib ducaan ku soo gabagabeynaya haddii la yidhaahdo dembideenna allaa dhaafo dembidii waalidadeenna allaa dhaafo ceebeenna allaa asturo godosha aan fadhinno ilaahay kii lagu guulaysa allaa ka dhigo wixii aan ku tashanno ee la qaatay ilaahay mirihiisana tus mirihiisa ilaahay aana tuso dadka walaalaha ilaahay shaydaanka ka dhex shaqaysan ilaahay ka qabo ilaahay ka dhex saar sidii hore ilaahay haana ilaahay ku soo celi guud ahaan ummadda muslimka ilaahay mideeyo wixii dhibada ilaahay ka qabto faatax gabagabadiina waxaa munaasabadani duco ku soo xiray ugaaska beesha ciise ugaas Mustafa Maxamed Ibraahim